weeye geel ninkii dhicin lahaa uu dhacayo lama dhacshaan baa leeyahay ujeedadu waxa weeye geelaagii haddii adugu aad dhacdid waxa weeye in lasoo dhiciyo tol beelay ha layla dhiciyo inaad tirahdid adoo geelaagii aduu iska dhacaya waa khalad geela markii cadow kaa dhaco qofka geelaydaahi dadkiisa ayuu qaylo u dirsadaa wuxuu yidhaha waa waray geeli baa laga dhacay geel keliya maahan mahmaahdu aad baa micnaheedu u ballaaran yahay dhulkaaga xitaa haddii lagaa dhaco hantidaada haddii lagaa dhaco dadkaaga haddii macno darro lagu dilo qofku dadka xigtadiisa ayuu u qaylo dhaamiyaa wuxuu yidhaahaa war garab ha la siiyey ciidan marka geelaagii aduu aa dhacday ha layla dhacsha haddaad tiraado lama dhacshaan baa leeyahay cid kula dhayaansa mala adaaba iska dhacaysa mahmaada micnaheedu sidaa wey dalkoodii ayay bixinayaan oo maaragtay cadow gacanta u gelinayaan mid maamul xumo ugu geliya mid fulaynimo ugu geliya oo ka cabsanayo oo aan dhihi karin dhulkaan anaa iskale aan dhihi karin mid aan u quurin dhiiggiisa inuu u daadiyo ama naftiisa uu u horo dalkiisa inuu difaaco mid hunguri xumo ay u geynayso aduu si kastaba ha noqoto waxaan aaminsanaha marka yacni madaxduba eedda ha sii lahaato qof kastoo soomaaliya run ahaantii anoo ka mid a waxaan aaminsanahay inuu eeddaa wax ku leeyahay waa mas-uuliyad wadareed waxaan ku baraarujinayaa kuna waaninayaa qof kastoo soomaaliya oo dhiig iyo dhacaan inuu dhulkiisa difaacdo dhulkiisa soomaali asagoo ah ummadda soomaaliyeed waxna waa ka dhexeeyaan waxna waa ku kala duwan yihiin dad islaam ahaan nahay 100% oo laa ilaaha illa allah muxamadu rasuulullah ayaa namidaysa laakiin waxaa labaadoo namideeyaa waxa weye waa soomaalinimada identity-ga dad soomaaliyeed baan nahay ninku wax kale ha aaminsanaado caqiidadu rabo iyo wuxuu rabo isaga u gaara waa hawl isaga u gaara laakiin dadka soomaaliyeed waxa kala dhexeeya waa soomaalinimada ummadda soomaaliyeed marka waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda dadnimadooda iyo sharaftooda iyo haybadooda ay difaacaan meel kastoo ay joogaan oo ay qoqobka iyo maaragtay qabiilka iyo qoysqoyska iyo maaragtay wax yarkaa ay ku qanceen ayse ku qanceen ee qarannimadii soomaaliya qaabkii ay kusoo laaban lahayd iyo karaamadii iyo sharafteena ay u istaageen